otitis media infection-ka ku dhaca dhegta oo ah mid xiise gooniye leh maadaama uu yahay mid soo laalaabta isla mar ahaantaana dhib xooggan ku haya ilmaha yaryar. Haddaba maxay tahay otitis media? Maxaa keena? Qaybtee dhegta ka mid ah ayayse ku dhacdaa? Dhegtu waa 3 qaybood: qayb bannaanka ah, qayb dhexe iyo qayb gudaha ah. qaybta dhexe waxay ka bilaabataa xuubka dhegta amaba eardrum. qaybtaasi dhexe waxaa ku jira lafo yaryar oo sameeya vibration amaba gariir si ay u gudbiyaan codka. Sidoo kaleeto waxaa meeshaasi laga sii daayaa dheecaano yar. dheecaanadaasi oo ay qaadaan 2 tubo oo yaryar oo loo yaqaano eustachian tube si loo geeyo qaybta dambe ee guriga oo ay ku furan yihiin tubooyinkaasi. sidaas daraadeed, haddii aad aragto qof qaba cudurka otitis media, waxay u badan tahay sidoo kaleeto inuu qabo amaba ay ku dhaceen cudurrada hargabka amaba infekshanada ku dhaca quunka, dalqada ama hunguriga. sababtuna waxa ay tahay in ay dhammaantood haddii uu infekshan ku dhaco ay bararaan kadibna ay xiraan tubooyinkii dheecaanada iyo hawada pressurekeeda amaba cadaadiskeeda ka soo qaadaya dhegta isla mar ahaantaana bannaanka u soo saaraya. tubooyinkaasi oo ah eustachian tube-ka. tusaale ahaan, haddii qofku uu ku dhaco cudurka hargabka ah, waxa uu keenayaa inuu barar ku yimaado cunaha iyo sanka qaybtiisa dambe, taasi oo keenaysa in ay cadaadis saaraan meeshii ay ka furnayd eustachian tube-ka. haddii ay xirantana eustachian tube-ka, waxaa meesha ka baxayo dheecaanadii ay ka soo qaadaysay dhegta iyo balansigii ay u sameynaysay cadaadiska hawada ee dhegta saaran. taasina waxa ay keenaysaa in dhegta ay ku dhismaan fluid amaba biyo fara badan maadaama aanan laga bixinaynin. sidoo kaleeto otitis media-da waxa ay timaadaa haddii qofka uu qabo tonsillitis amaba waxa loo yaqaano quunka, oo markii uu bararo waxa uu keenayaa sidoo kaleeto cadaadis saarmaayo meeshii ay ka furnaayeen eustachian tube-ka. sidaas daraadeed, markasto waxaa la arkaa in infekshanka dhegta uu la socdo infekshano kaleeto. haddaba maxay tahay calaamadaha lagu garan karo qofka qaba infectionska ku dhaca dhegta? waxa ugu horeyso, qofku wuxuu yeelanayaa dheg xanuun amaba pain. wuxuu yeelanayaa sidoo kaleeto drainage amaba inay dheecaan ka yimaadaan haddii waqti dheer jiro. waxaa kaleeto oo lagu arkaa triple hearing amaba in maqalkiisu uu xumaado. ilmaha yaryarka ahna ee aanan sheegi karin sida kuwa 6 bilood iyo wax lamidka ah jira ee aanan weli hadalka gaarin, waxa ay lagu arkaa ooyin xad dhaaf ah. haddii calaamadahan qaarkood amaba in badan oo iyaga ka mid ah uu qofka isku arko wax ka badan hal maalin, waxaa qasaba inuu dhakhtar booqdo. haddii dhegta ay kaaga dhacdo infekshanka loo yaqaano otitis media isla mar ahaantaana aanan raadsanin daaweyn rasmi ah oo ku habboon, waxaa ka iman kara complications amaba caqabado aan wanaagsanayn. waxaana ugu muhiimsan in dhibaato xoog leh ku timaado maqalkaaga amaba hearing laiskugu yimaado. sidoo kaleeto waxaa kugu imaan karo in infekshankii uu faafo. meesha ugu dhow ee infekshanka dhegta ku dhacay oo ku faafo waa laf yar oo kasoo taagan dhegta gadaasheeda ama waxa loo yaqaano mastoid. laftaasi haddii uu infekshan ku dhaco dhegta isla mar ahaantaana aan la daaweynin, waxa uu faafi karaa laftaas. sidoo kaleeto ma badna, laakiin waxaa suuragala inuu u faafo meelo intaasi ka fogfog oo ay ka mid tahay xuubka maskaxda saaran, taasi oo ka imaan kara cudur khatar oo loo yaqaano meningitis. sidoo kaleeto waxaa iyadana in la xuso mudan in haddii dhegta uu infekshan ku dhaco isla mar ahaantaana aanan la daaweynin, inuu imaan karo dilaac ku yimaado xuubka dhegta. kastoo iyadana ay xusid mudan tahay in dilaacyada dhegta xuubkeeda ku yimaada ay ku bogsoodaan muddo 72 saacadood, balse waxaa imaan kara in aysan taa dhicin markaasi oo loo baahnaanayo surgical repair amaba in qalliin lagu xalliyo.